بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الكونين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع نهجه القويم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الحاضرون وأيها المشاهدون لنا من كل مكان. maanta waa maalin khamiis ah, taariikhu waa 21 November 2019. magacaygu waa Sheekh Abdulqaadir Sheekh Maxamed Sheekh Abubakar Sheekh Soomow, afayeenka golaha guud ee culimada Soomaaliyeed. walaalayaal, waxaan jeclay isla saaki in aan la wadaago klibka kan oo aan u jeedinayo dhammaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan reer Muqdisho. sababtu arrintan aan maanta u duubana waxay tahay badbaadin la badbaadinayo caqiidada saxda ah iyo in dadka la isdareensiiyo in la xisaabtamo. walaalayaal, waxaa isoo gaartay oon ka arkay telefishinka qaranka soo dhigaya ninka la yiraahdo Sheekh Umul inuu biri garoonka Injineer Yarisow rahimahullah inuu muxaadaro ku dhigayo. afkiisana uu ka yiri waxaan dhigayaa muxaadaro Muqdisho aan u dhigayo kuna saabsan waxyaabaha keena masiibooyinka iyo waxyaabaha lagu cilaajin karo. waxaan rabaa marka inaad dadka Soomaaliyeed ee maqlaaya ama idaawanaya aan la wadaago dhibaatooyinka waxyaabaha keena in la diraaseeyo sax waaye, wixii lagu cilaajin lahaa in la helana sax waaye, laakiin waxaa la rabaa dhibaatada noocyada horta in la isla fahmo. dhibaatada Soomaaliya haysata waxa ugu weyn badan waxa waaye dagaalada sokeeye ee dalka Soomaaliya ka dhacay ee fikirka diiniga ah ku dhisan. qofka waxaa la rabaa marka waxaan loo sheegaa inaan fiirino khalfiyaadkiisa. dadka Soomaaliyeed waa dad muslima boqolkiiba boqol laga soo bilaabo zimikii nabiga calayhi salaatu wasalaam. waxay ahayd dad sunniyiin ah, dad madhabka hore Shaafici ahaayeen. haddii ay xilligii madaahibta ay soo baxeen laga soo bilaabo 204 oo geeriyo Imaamu Shaafici 150 ay una dhashay waxay ahayd dad Shaaficiyiin ah oo hijriga ah markaas ilaa maanta laga soo gaaro maanta. dad waxay ahayd ahlu sunnah oo ahlu caqiidadoodna ay tahay caqiidatu ahlu sunna wal jamaa. dad waxay ahayd ahlu dariiqa ah ilaa laga soo gaaro lixdameeyadii oo ay soo bilowdeen khawaarijtu. walaalayaal, haddaba maxay tahay sababta aan kilibkan u keenayo? waxaa waaye sababaha soo socdo. kow, in laga digtoonaado iyo inaan dib taariikhda u barano iyo waxa soo socda inaan fahnaa. ninka la yidhaha Umul mawaaqiftiisa ila taqaaniin aniguna aan ogahay, asigu naftiisuna ogyahay. waxaa ka mid ah in uu dadka Soomaaliyeed intooda badan oo ahlu duruq ah ama suufiye ah ay agtiisa gaala ka yihiin oo masaajidooda amiiradka la geey karin laguna duka karin ayuu goobo badan ka cadeeyay. labo, wuxuu dhiirigeliyey dadka ahlu sunna wal jamaa ah meel kastay joogaan wixii khawaarijtu ay ka dishaneen khudbooyinkiisa ayay kula dhishadeen. waxaan leeyahay marka masiibada ka weynta waaye in qofka caqiidada laga fasahaadiyo oo qofka caqiidadiisa la fasahaadiyo. waa ogtii mawaaqifta Umul waxaa ka mid ah nabiga calayhi salaatu wasalaam afkaygu ma karee sidaad ogtihiin xaqiraad weyn oo geystay. nabiga la xaqira waxay tan waa garan kartiin. mawaaqiftiisa waxaa ka mid ah in uu xaaraan ka dhigay inuu xalilay oo xalaal uu ka dhigay waraabaha. mawaaqiftiisa waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliyeed madaxweynaha soo mara mid ka mid ah asigoo masaajidkiisa jooga inuu dhiirigeliyey dagaalkii lagu hayay oo khawaarijta ku haysa. haddaba walaalayaal, Umul ma waxuu bedelay in suufiyada gaala ay yihiin fikirka ama ma ka laaban weli waa ku taagan yahay. waxaan kaloo idin sheegayaa masiibada ka weyn ma jirto. waa taa isla qaadana soo maahay in qofka caqiidada laga galo oo dadka Soomaaliyeed qof ahlu tawxiid oo adigu gaal u ictiqaadiso masiibo ka weyn ma jirto soo maahay. ninkii saas ku dhiirigeliyay dad badan ayaa fikirka Umul waxay ugu diraan qabriyaal oo khawaarijtu ku leysa. kuwa badan agoomana oo maanta jooga, kuwa badan ayaa tabca karin oo dhaawac culus qaba,
kuwa badan ayaa gablamay oo wiilkoodii ama zawjkoodii ama zawjadoodii ku waayay dadkii ninka noocaas ahaa oo weli ku taagan oo aaminsan inaan gaalanahay inuu hortayna soo istaago masiibadii asugu oo keenay mid ugu weyninka badneed oo keenay oo yiraahdo weynka warama waa ayaan daro waxa ayaan daraa telefishinka qaranka oo codka dawladda ah in uu soo dhigo ruux la og yahay inuu dhiirigeliyo u ahay khawaarijta ruux la og yahay inuu u yaqaan ahlusunna jamaaca gaal inay yihiin inuu ka dhigo shiikh weyn oo birito muxaadaro jeedinaya dadka muqdishaawiga ah waxaan rabaa umul xadala inay iraahsay laftiisa umulow mas og tahay in badan oo hay muqdishaa ay qabri ugu jiraan kuwa kale Soomaaliyeed ugu jiraan fikirka adiga aad aaminsan tahay oo khawaarijtu ay fuliso masala kuwina laay adigana macalinka u heeday ma biriga ka soo laabat adigoon cadayn in suufiyada ahlusunna jamaaca marka galoo yaqaan ee suufiyadu muslimiin inay yihiin adoo ictiqaad adoo cadayn adoon ka tooba keenin adoon cafis dadban ina hortayna timaado waa ayaan daro heer muqdishaawiga waxaa inaa iraado muxaadarada uu qabanayo ninka la yiraahdo umul birito sida uu sheegay telefishinka qarankuna uu baahiyay ha isku tegina sababtu maxay tahay ilaahay quraankiisa wuxuu ugu leeyahay wala tarkanu ila alladina zalamu fatamassakumun nar wama lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun dhulmiga ha u ilana kuwa zaalimiinta ah oo naaru aydin taabato ظلم دائم حاليا ظلم محاوي إن الشرك لظلم الشرك هو ظلم إلى القرآن سيقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون أنا كعلماء أنا واجب أنا صار حق أنا عدينا أنا قلنا ربع حق أنا عدينا وحواي ذاتك أهل البدعة أهل الضلالة بدعة ظاهر سنايا نبي عليه الصلاة والسلام حقرا مسلمين تكو قالنا محكمنايا إن الله لحن هدي الله إيشو وحقور الآذو وجمعور لبضيو ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم نار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون ومن كلي أنكو إذا سكنا مركو توبدي سإعلاميو مركو وحو في السهادية أو سمايو waxaan rabaa marka ina dadka Soomaaliyeed ku baraarujiyo ninka muxaadarada bihi qabanaya waa nuucas waa ninka nabiga kaleey salaatu wasalaam xaqiray waa ninka fikirka khawaarijta u sheekha waa ninka dad badan ay qabri ugu jiraan kuwana u dhaawaceen kuwana u hanti beelaan kuwana hadda u handadan yihiin oo ahlu sunna wal jamaa oo ahlu dariiqa ah dawladda Soomaaliyeed baa ina ku baraarujiyo telefishinku waa meeshii aan ummadda ka hagaajinay telefishinku waa meeshii khawaarijta lagu diray telefishinku waa meeshii aqeedada sax laga faafinayo حكى فين عقيدة فاسدة حوايا حاردي بالليل هنغنى قف كستو كوفي العلماء هنود هنا قف كستو قميص وتواشي قد هنا وإنا كالبرتان قف كأمد سحر وشيء مواقف توس إناس بدلين والدين تيسا كل وصل إيا قف مالين بجيت فورا وإنا كالبرتان مرة من عقيدة برجورة عقيدة ثابتة وكتابك يسونا كتاجن أيام رمنا وحأنت أقول لنا النبي وحولي عليه الصلاة والسلام إذا ظهرت البدع وسلكت العالم فعليه لعنة الله لعنة داس أنكو كعررين أيام حان ديدينا ومدين إن لفسادي أنكو تاجن وإذن شاقني اللهم هل بلغت بلحنا نواجه سينا مركا إن يسن الإيوح لمدى التلفزيون كقرنك وقران هو مغليسي ما دام أولمش مدى لها نونينا شعب كان وأول شيء dadka ahlu bid'ah dhageysanay umulna waa u nasiixeeyo waxaan ku yiri walaalo horta marka ugu horeys adiga toobakeen laftaada hagaaji ka bacdi noo imow wassalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala